بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaan ba allaha awoodda leh dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo isniin ah soddonka bisha November 2020 cudurka coronaviruska waa uu jiraa meelo badan oo adduunyada ka mid ah iyadoo dadaallo xoog leh la wado dhinaca kalena inta laga gaarayo talaalka ugu horeeya daawada kaliya inay tahay dadka in lagu gubaabinayo mar walba sankii afka inay xirtaan oo ay kala fogaadaan nadaafadan ay ku dadaalaan gacmahoodana si joogta ay u dhaqaan UK ayaynu soo qaadanaynaa waxaa iminka ka socda barnaamij 4 toddobaad qaadanaya oo lagu xanibay guud ahaanba reer England kaas oo ku eg maalinimada Arbacada ee soo socota ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa waxa uu ka hadlay in maalinta Arbacada marka uu hakado xanibaadda England ee 4 toddobaad ay bilaaban doonto barnaamij kale oo ah saddex qaybood oo ah feejignaan dheeriya oo ah feejignaanta dhexe feejignaanta sare iyo feejignaanta aadka u sarreysa taasoo la qorsheynayo inay socoto tan iyo horaanta sanadka 2021 arrintaas iyada ah ayaa waxaa ka soo horjeeda qaar ka tirsan dadka iyagu MB-ga ama Member of Parliament kuwaasi oo ka tirsan weliba xisbiga uu isagu ka tirsan yahay haddii uu yahay Boris Johnson oo ah xisbiga Conservative-ka oo rag ka tirsan ay qabaan inaan taas la samaynin ah heerarka kala duwan ee xanibaadda haddii laga gudbo 2 bisha December laakiinse ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu sheegay marka baarlamaanku arrintaasi uu codka u qaadayo maalinta berri oo Talaada inay tahay laga maarmaan inay dawladda ku taageeraan arrinka ku saabsan xanibaadda heerarka kala duwan taasoo uu sheegay inay laga maarmaan u tahay dalka iyo dadka maxaa yeelay waxa la doonayaa buu yiri in cudurkan coronaviruska lagula dadaalo sidii markaa loo joojin lahaa loona hakin lahaa faafidiisa isdaba joogga ee meelo badan oo ka tirsan UK waxa uu shaaca ka qaaday ra'iisul wasaaruhu haddii taa la sameeyo in wanaag imanayo isla markaasina dadku ay ka badbaadi karaan mowjadda labaad ee cudurka coronaviruska iminka lagu jiro waxa kale oo iyaduna jirta oo meesha ku jirta oo aan laga saarin in ra'iisul wasaaruhu uu ka dhawaajiyo shaqaalaha caafimaadka UK NHS-tu inay dhibaato xoog la mudan karaan haddaanay dawladdu gaarin go'aamada noocani oo ah midda meelaha qaar la xirayo dadkana lagu kala xanibayo taasoo dhibaato xoog la keeni karta lagama maarmaanna ay tahay si dhibaato soo gaarta NHS-ta iyo caafimaadka looga hortago in tallaabooyinka noocaasiya la qaato waxaa jirta haweeneyda ugu qaabilsan xisbiga mucaaradka ee Labour-ka dhinaca arrimaha dibadda oo lagu magacaabo Liza Nandi ayaa iyaduna waxa ay sheegtay dawladda inay ku taageersan yihiin arrinta ku saabsan in la sameeyo xanibaad iyo dadka in la kala joojiyo heerar kala duwan guud ahaanba dalka laakiin waa mid shuruud ay ku xiran tahay bay tiri dhinaca kalena aan doonayno shacabka reer UK in markaasi loo daneeyo haddaba arrimahan iyaga marka laga hadlayay ayaa ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu sheegay warqad uu qoray ragga iyagoo hawsha qaabilsan iyo ragga xubnaha baarlamaanka UK inay laga maarmaan tahay in 2 bisha marka laga baxo barnaamijkan isaga ee kale xanibaadda kale heerka la bilaabo isla markaasina ay ku taageeraan oo codkooda ay markaasi ku ansixiyaan maalinta berriya oo Talaada ra'iisul wasaaruhu waxa kale oo si gaar ah ula hadlay jariidada lagu magacaabo Mail maalinimadii Axadii waxaana uu u sheegay inay laga maarmaan tahay in la taageero barnaamijkan dawladda kaas oo la eegayo 2 toddobaadba oo hadduu 2 bisha December bilowdo barnaamijka cusub ee xanibaaddu maalinta ugu horreysay la eegaya ay noqon doonto 16 December kadib waxaa loo gudbi karaa buu yiri bisha January 2021 in mar kale baarlamaanku cod u qaado taasoo aqritaanka ku dhamaanaysa xanibaadan iyada ah ee December 2 bilaaban doonta tan iyo 3 February sanadka 2000 iyo waliba 2021 ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu sheegay in iyadana marka la gaaro fasaxa Easter-ka ay dhici karto in la helo fursad noloshu ay caadi ku soo laaban karto waa wax u eg buu yiri laakiin aan la ogeyn sida ay noqon karto balse ay rajeynayaan waxa kale oo maamulayaasha UK iyo qoliyaha caafimaadkuba ay ka digeen inaan meesha laga saarin oo ay dhici karto mowjad saddexaad in iyada laftooda bilaaban karto iyadoo la isbilayahaba mowjadii labaad ayaa qafiiftay amaba laga badbaaday haddii haddaba la fiiriyo guud ahaanba UK dadaallo kala duwan ayaa ka socda haddii ay tahay dhinaca eegista dadka laga eegayo si buuxda cudurka inay qabaan iyo in kale waa cudurka coronaviruska waxa kale oo jira barnaamijyo lagu diyaar garoobayo talaalada soo socda ra'iisul wasaaruhu marka waxa uu leeyahay dadka reer UK waxa laga rabaa inay iska kaashadaan waa marka koobaad raacidda nidaamka dawladdu ay soo dejisay waa marka labaad inay ka wada qayb galaan dhinaca ka eegista cudurka laga eegayo diyaar u noqdaan iyo saddexaad oo ah buu yiri inay talaalka marka uu yimaado ay ka wada qayb qaataan si ay noloshooda iyo dadka kale markaasi ay u badbaado
haddii markaa daba la fiiriyo dadaalada xoogga leh ee ka socda UK waxay u muuqdaan oo dadkeeduna iskaashadaan in wax badan la qaban karo sida ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka tirsan maamulayaasha dalku ay qabaan waxaa jira iyaduna inay isdifaacday haweeneyda wasiirka koowaad ka ah Scotland taasoo lagu dhaliilayo inaanay si fiican u wajihin arrinka ku saabsan cudurka coronaviruska taasi oo loo arkayo mararka qaar Scotland dadka ka dhimanaya inay England ka badan yihiin xagga cudurka coronaviruska laakiin haweeneydaasi waxay sheegtay in barnaamijyo kala duwan iyo xanibaado kala duwan oo la soo rogay intuba ay u suurtageliyeen wax badan oo bi'i lahaa inaanay bi'inin guud ahaan marka la fiiriyo UK 24 saac ee ugu dambeeyay waxa laga arkayay dad cudurka laga arkay oo gaaraya 12,155 ruux waxaana maalintii shalay ilaa xalay cudurka u dhintay guud ahaan UK marka la fiiriyo 215 ruux iyadoo guud ahaanba tirada dhimashada ee cudurka UK ay noqonayso 58,245 dadka guud ahaanba cudurka uu ku dhacay UK-na waxa ay ka badan yihiin 1,617,300 guud ahaan marka la fiiriyo adduunyada culaysyo kala duwan ayaa jira oo lagu kala horeeya xagga soo riidashada ee dhimashada Mareykanka marka la fiiriyo aad iyo aad ayuu cudurku u faafaya iyadoo la sheegay maalmihii ugu dambeeyay ilaa iyo 200 ku dhawaad inay noqonayeen dadka la arkayay maalin walba dhinaca kale tirada dhimashadu mararka qaar 2,000 inay dhaafaysay 1,500 inay noqonaysay taasoo loo arkayay xaalku inaanu wanaagsanayn laakiin ay jireen awaamiir kala duwan oo ay soo rogayeen guud ahaanba dowladda guddiga ugu qaabilsan arrimaha ka hortagga cudurka coronavirus waa Mareykanka iyo weliba ragga guddoomiyaasha gobollada Mareykanka ka ah gobolladuna waa ay ku kala daraayeen marka la fiiriyo cudurku soo riidashada iyo dhinaca dhimashada Mareykanka dadka cudurku uu soo ritay waxa ay ka badan yihiin 13 milyan iyo 400 oo kun oo ruux dadka cudurka Mareykanka uga dhintay ilaa haatan iyadoo tiradu mar ka dambeysay sii socotana waxa lagu sheegay 266,600 oo ruux dadka badan waa Mareykanka laakiin waxa iyaduna jirta dadaalo xoog leh ay wadaan guud ahaanba maamulayaasha caafimaadka iyo saynisyahannada oo la doonayo in la ogolaado 10ka bisha December in talaalka loo fasaxo kadibna la bilaabo qaybistiisa oo loo qaybiyo 50ka gobol ee Mareykanka uu ka kooban yahay iyadoo dadka markaas lagu bilaabo loo eegayo sida ay dadku u kala daran yihiin xagga cudurrada iyo xagga da'da iyo qaab loo dejin doono markaas guud ahaanba Mareykanka adduunyada guud ahaanba marka la fiiriyo maalinka cudurku uu bilowday ilaa maalinka maanta waxa uu gaaray oo cudurku uu ku dhacay 62,500 oo kun oo ruux dadka badan waxaana uu ku dhacay oo ka caafimaad oo ka istaagay ilaa iyo 40 milyan oo ruux adduunka oo dhan cudurka coronaviruska waxaana ku dhintay oo aan ka kicin sida warbixinta isbitaalada kala duwan ee adduunku ay sheegayso guud ahaan 1 milyan iyo 460,000 oo ruux marka hadaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana kuu soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada eebba aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah